Akhyaartu waan salaamay. Maanta waxaan rabaa inaan idila wadaago projectiga yar kaasoo aad ku baran doontid waxa loo yaqaano CSS Grid. Haddaa waxa CSS Grid yar dul istaago marka la isticmaalayo layout-ka CSS-ka website-ka laba nooc ayaa la isticmaalaa Flexbox iyo waxaa la isticmaalaa CSS Grid. Waayadan dambe waxaa aad loo isticmaalaa inta badan ay ku dhisan yihiin framework Tailwind iyo Bootstrap waxa loo yaqaano container grid ay ku dhisan yihiin. Hadda maanta waxaan baranaynaa CSS Grid-ka sidee loo sameeyo anagoo ku base garaynaa project yar aan ku baran doono. waxaan sida app ku samaysaynaa folderka aan ku baraatikeenayno oo sawirada wax dhan noogu jiraan. waxaad kala soo degaysaa linkiga xagga hoose ee videoga aad daawanayso commentiga meesha xagga hoose ayaa kala soo degaysaa. Okay, halka markuu ku keeno folderka GitHub-ka markaa kusoo dhufatid linkiga halkan uu ku keenayaa. waxaad ku dhufanaysaa si aad u degsatid folderkan ay ku jiraan source-ga iyo sawiradaba. waxaad ku dhufanaysaa halkan meeshan code ku qoran tahay, kadibna waad dejisanaysaa. waxaa leedahay download ayaa ku dhufanaysaa zip, kadib wuu kuu soo degayaa. markuu kuu soo dego si toos wuxuu kugu soo degayaa halka folderka downloadka ayuu kugu soo dhex degayaa. kadib waa kana folderkii waxaad furaysaa markaas zipka ayaad ka furaysaa extract all aad leedahay. kadibna waxaa leedahay extract ayaa kusii dhufanaysaa. kadib markaa uu kuu furo si automatic ah uu kuu saaran yahay folderka. waa kana marka ay ku wara jiraan HTML code-kii waxay dhan noogu jiraan. marka kana waxaa leenahay control X ayaa leenahay, gadaal u soo laabanaynaa. kadibna waxaa meel bannaan aan dhiganaynaa. kadib waa iska delete garaynaa kuwan kale maadaama aan kala soo dhex baxnay folderkii. Visual Studio Code-ka gelaysaa si aad u furatid folderkaas. folderka markaad furatid Visual Code-kaagii haddii project hore kuu kacsan yahay waxaa iska leedahay close folder iska leedahay. halkan ayuu ku keenaya. kadibna waxaa leedahay open folder ayaa leedahay. folderka aad furaysaa, kadib wuxuu dhex yaalaa meeshan download-ka ayuu dhex yaalaa. waa kana marka laba jeer ay gudaha u galaysaa, double click aad leedahay. kadibna waxaa leedahay select folder. sidaas ayaa wuxuu kugu soo furmay folderkii ay ku jiraan. marka halkan waxaa iska leedahay yes ayaa leedahay. folderkii ay ku jiraan sawiradii iyo sidoo kale HTML-kii iyo CSS-kii. hadda halka ku dhufatay HTML-ka furnay. waa kana marka HTML-kii text wax dhan uu noo diyaarsan yahay. sidoo kale halkan CSS-ka waxa kuma diyaarsano. waa kan videoga la baraatikeenaysaa. waxaan bilaabaynaa marka projectkeena bilaabaynaa. haddiisan uu kugu jirin extension-kan kusoo shubo. wuxuu naga caawinayaa marka live server-ka ayuu naga caawinayaa extension-ka markaas. marka isaga waxaan leenahay inaa kusoo shubataa rajeynaya. kadib waa soo laabaynaa marka waxaan rangaraynaa folderkeena rangaraynaa. waxaan right click waxaan show preview. marka ku shubatid kadib halkaas ayuu kugu soo qormayaa. marka kugu soo qormo waxaa leenahay waa koobiyeysanaysaa. anaga ma rabna halka inaa kasoo muuqdo shaashadda inay si fiican u aragnaa rabnaa koodhkeena dhan. waa koobiyeynaysaa. kadib waxaad tegaysaa Chrome-ka ama browser-ka isticmaalaysid. halkaas marka basti ayaa ku leedahay, enter ayaa ku leedahay. markaas aniga hore ayuu nagu kacsanaa, adigana halkaas ayaa nagala soconaysaa. kadib waa iska xiraynaa marka kan isaa shaashaddeena u waraagno. baadhigeena markaa soo galno index.html-keena baadhigaas u galaynaa. haddaa fiirin website-keena waxba kuma qorno waa ever. waxaan ku dhex qoraynaa marka qaybta header-ka ayaa ku dhex qoraynaa. header tag ayaa furaynaa. header tag markaa furano waxaan dhex gelaynaa h1. waxaan ku dhex qoraynaa marka title-kaas. aan isla fiirino inaan save garayno uma baahno, automatic ayuu halkaas noogu soo asaa noo save garaynaya. intaa kadib markaa header-ka aan qornay waxaan kusii xijinaynaa wax loo yaqaano main. mainkan ayaan qoraynaa oo dhammaan article-keena dhan oo website kasoo muuqanaya noo hayn doono. markaas waxaan u baxsanaynaa galaas loo yaqaano grid container. magaca rabtaa waxsan kartaa, laakiin aniga magacan saa ugu aqoonsan ayaa u baxsanay. kadib mainkeena waxaan dhex gelaya markaas article ayaa dhex gelayo oo feature loo yaqaano oo kan u horeeya ayaa dhex gelaya. article-ka u horeeya oo kan ah ayaa noo soo dhex gelaya. marka intaan ayaa waxaa loo yaqaano feature. sawirkiisa iyo waxaan dhex geli doonaa qoraaladiisa marka.
waxa soo dhawaayay waxaan ku soo gelinaa sawirka ay soo gelinaa sawirkeena markaa soo gelino image tagga waxaa leenahay imageka folderka loo yaqaano iyo soo kale image namekiis ayaa soo gelinaa isla gudihiisa waxaan dhex gelinaa markaas articleka sawirka hoostiisa div container kana furaynaa waxaan gelinaa h1 oo qoraalkaas titleka wato iyo paragraphkan markaas aan fiirina marka hadda waxaa noo soo galay sawirkii aan soo gelinay iyo h2gii oo titleka ah iyo paragraphkiis haddaba saa u sameyno intaan marka koobiyeynaa intaan ayaan 3 jeer oo kale koobiyeynaa marka si ay noogu soo galaan kuwan kale si ay noogu soo galaan kuwan 3 jeer ayaan koobiyeynaa maadaama isku mid yihiin sawir iyo inta kale ay ka sameeyeen yihiin 3 jeer ayaan koobiyeynaa marka aan ku laaban koodkeeni waxaan nahay copy aan leenahay waxaa qaban kartaa alt shift arrowga ayaa qabanaysaa down arrow isa u koobiyeysa ama waxaa leedahay highlight copy paste ayaa dhigi kartaa 3 jeer ayaan koobiyeynay okay waa isku mid markaas kaliya waxaa ka reebaysaa class namekii kuwaada fiirno feature class oo baxsan kuwa kale malaha article keligooda marka article keligooda ah kuwaas feature kuma qoraysa marka tagna markaas waa soo gashanay maadaama hadda html qaleel aan noo qoran wax oo malaha oo kooda oo css malaha mid kasta bloggiisa ayuu haystaa marka hadda waxaa u gudbaynaa qaybta css-ka si aan markaa u soo xalino qaybta u horeysa oo ah headerka saa u soo qurxino kalarkii waxyaasna u sameyno kadibna kan ayaa ku xijinayna markaas aan ku laabano waxaan tegaynaa qaybta css-ka ayaa tegaynaa intaas waxaa noogu dhigan qaybta html-kii qaybta css-ka markaan tagno css-ka markaas uu isku ka xiran yahay maadaama folderka aad soo degsatay uu isku ka xiran yahay automatic waxaa leena markaas waxaa ka bilaabana marka ugu horeysa badiga ayaa ka bilaabaynaa badi markaan qorno badi tagga aan soo furno gudihiisa waxaa gelinaa font family-gan haddaysan kugu jirin kuma shaqayn doonto aniga computerka igu install garaysan tahay waxaa loo yaqaanaa poppins loo yaqaanaa marka fara kala isticmaali kartaa marka hadday kugu jirtana waa isticmaali kartaa haddaa fiirna marka fartii waa bedelna hadda farxo waa qurux badan ay inoo noqoto markaas oo si fasiix loo aqri karo marka waxaa bedelaynaa backgroundkeena waxaa ka dhiganaa background colorkan ayaa ka dhiganaa oo madowga ah ayaa ka dhiganaa hadda waxaa noo saaran background caddaana marka hadda marka waxaa noo saaran background caddaankan waxaa leenaha marka backgroundka ayaa bedelaynaa waxaa leenaha background color koolkan ayaa siinaa markaas haddaa fiir marka background colorkan waa bedelnay kii hore ayaa weekeysiinay like black ayaa ka dhiganay sidoo kale qaybta badiga halkaas aan ugu soo gudbaynaa waxaa imaanaa qaybtan loo yaqaano h1 dhammaan h1ka titleka iyo kuwa kale oo titlada dhan ayaan soo qaadanaynaa waxaa leenahay kalarkooda waxaa ka dhiganaa kalarkaas ayaan siinaynaa fiirno dhammaan h1 iyo h1nadii kale h2gii iyo h3yadii kale oo dhammaan titlkoodii ayaan bedelnay sidoo kale waxaan soo qaadanaa paragraphka ayaa furaynaa isagana si qoraalka paragraphka u bedelnaa isagana kalarkiisa kalarka koolkaas ayaa siinaynaa daafir dhammaan paragraph colorkii oo ayaga dhan waa bedelnaa markaas intaa kadib waxaan soo furaynaa headerkii qaybtan koro headerka ayaan qurxeynaa headerkan ayaa xawogeysiyeynaa headerkan kale daafir hoos xariiqdan uu ka leeyahay asana saasoo kale ka dhigaynaa marka headerka markaan soo furnay waxaa leenahay widthkiisa waxaa leenahay waa balaareynaa sidoo kale waxaa gaarsiinaa ilaa 1200 pixel max widthka kadib sidoo kale margin waxaa leenahay 40 pixel kor iyo hoos kasoo margin ku samee laba dhinacna automatic ka dhigaa leenahay left and right kadib waxaa leenahay border button xariiqdan hoose u samee kalarkooda noocaasi haddaa fiiran markaas waa kana marka waan soo gelin xariiqdantii iyo marginkii paddingkii waa soo gelin qaybtan titleka waa kasoo gudubnay waa kasoo dhammaanay waxaan u gudbaynaa marka waxaa loo yaqaana grid containerkeenan oo good oo mainka ah ayaan soo dhex gelinaa main containerkan oo wax dhan noo haya ayaa grid ka dhigana marka waxaa galaas namekan waxaa grid container ayuu noo ahaa marka grid containerkeen ayaan soo qornay markaan soo qornay kadib waxaan dhex gelinaa cohort waxaa leenahay waxaa loo yaqaana display grid ayaa leenahay kadib markaan dhahno waxaa leenahay grid template column waxaa leenahay column ayaa u sameeynaa oo ah 1 2 3 saddex column ayaa u sameeynaa marka fractional column ayaa loo yaqaanaa 3 column ayaa u sameeynaa marka kadib waxaa leenahay waxaa u dhexaysiinaa gap oo space u dhexaysiinaa haddaa fiirno hadda intaan haddaan gaapka aan xiro comment saaro saa u aragtiin isbedelka
halkan waa maxi width waxa ku in 200 gaarsiinayna iyo margin kan waa 20 pixel kor iyo hoos laba dhinacne waxa leena automatic ka leena aan fiirna marka hadda gaabka xirnay maanta isku radhakan yihiin saddex column waaye waa 2 column 2 column saddex column kan kala uu soo degaya maadaama saddex column aan ka dhignay uu soo degaya marka hadda afar column rabtid halkan un baa leedahay 1 fr leedahay soo aan afar column noqon hadda fiiri kii kale uu soo galaya marka hadda fiirno midka inta ahaa okay 1 2 3 4 afartoodii hal dhinac ay wargelayaan marka waxa leenahay gaabkeeni oo dhinacan ahaa ayaa u dhaxaysiina meeshan gaabka ahaa ayaa u dhaxaysiina waxa leenahay grid gaabka ay leenahay documentiga ka qaadayna waa 60 hadda fiirno 60 u dhaxaynaya marka 60 pixel ayaa u dhaxaynaya gaabka sidoo kale cabirka ugu weyn maxi 1200 ahaa wuxuu leeyahay headerkan meesha uu leeyahay margin kana waa ku darsanay intaas waxa u gudbayna marka qaybta container keeni ahaa oo dhammaan article aynu hay inaan grid ka dhignay ayaa ugu gudbaynaa sidoo kale waxaan soo aadaynaa marka inaan qaybtan kligiis aan sameeyno inuu xagga hore qabsado sida kan oo kale daafirno asaga halkan haysto kuwa kale hoostiisa imaanaya marka saa uga dhigna markaas waxay imaanaynaa article kan oo loo yaqaano feature ayaa soo qaadaynaa feature article kan aan soo qaadaynaa kadib asana waxa ka dhiganaa marka inuu meesha qabsado asla fiirna markaas css keena ku laabano waxaana markaas article feature markaas soo qaadano oo glass keena ahaa oo article feature markaas soo qaadano dhexdiisa marka waxa galeena asana intaana kooda ku dhex qoraynaa waxaana ku waxa loo yaqaan grid column span tree aleenahay saddex column maadaama ay ahaayeen kaligiisa warqaato kaligiis hawar qaataa leena marka waa kana kaligiisa war qabsaday meesha hore kuwa kalena way hoos imaadeen markaas kuwa kalena way hoos imaadeen dhexdiisa laftirkiisa waxa ka dhiganaa marka grid ayaa kasii dhiganaa ase dhexdiisa grid ayuu noqonayaa marka hadda gridka saddex ka qaadno aan qarno su'aal ahaan columnkiisana aan qarno oo is hoos imaanaya asoo saddexda xabba haysto ayuu is hoos imaanaya marka saa marka asana column dhexdiisa waxa sii dhex gelinaa waxa loo yaqaan subgrid ayaan asana kasii dhigaynaa soo markaas labo column u noqdo spaceka waxaan waa ka saaraynaa saa sawirka u yareyno alliance centerkiisa geeya leenahay gaabkiisa 60 u kala dhexaysi border button hoos xariiqin ugu sameeya leenahay padding kana 40 pixel hoos ugu yara dulka intaa kadib marka waxaa aadaynaa qaybtan oo sawiradii dhammaan article maadaama mid kasta article-ka sawir uu ku dhex jiray sawirka u tagayna marka image-ka ayaa leenahay kadib image-ka waxaa leenahay widthkiisa waxaa leenahay 100% waxaa leenahay border hareeraha xariiqin ugu wareejiya leenahay oo colorkaasna sidoo kale border radius geesaha kasoo qallooci 8 pixel leenahay marka sawirada kun hadda way yaraadeen space-ku kasoo baxay maadaama sawirka widthkiisa 100% ka dhignay meeshiis ku ekaanaya ku kale soo durkaya markaas space-kii dheeraad ah meelahan tagay uu ka baxay sidoo kale border radius waa kana geesaha kasoo qalloocinay dhammaan sawiradii mid kasta marka wuxuu u ekaaday marka qaybteena hadda oo hore ayuu u ekaaday markaas hadda fiirno qaybta desktop-kii way isku ekaadeen markaas oo aad dhigna marka sidoo kale markaas waxa uu gudbaynaa marka xawaair qoraalada hoose article paragraph-yada iyo ciwaankooda mar waxaa leenahay margin-kooda waxaa leenahay intaas ka dhigaa leena marka ins marka la soo gaaro qaybteena waa kasoo gudbinay oo desktop-kii uu noo qurxooyaa keen hore u ekeysiinay laakiin waxay kala duwan yihiin inaan marka aan ka dhigno responsive inaan ka dhigno tusaalahaan hadda ka responsive iyo fiirino oo shaashadaha kala duwan aan ku fiirino waxaan arkaynaa inuusan responsive ahayn daarno wixii dhan way sii yaraanayaan arta wixii dhan way sii yaraanayaan marka waxaan ka dhigno waxaan rabnaa inaan ka dhigno responsive design inaan ka dhigno ayaa rabnaa markaas saa uga dhigna marka responsive design waxaa usoo laabaynaa meeshan code html-keeni waxaa imaanaa qaybtan waa saa imaanaa waxaa qoraynaa wax la yaqaan media query tablet marka la joogo media query screen-kan waxaa leenahay maxi widthkiisa markuu yahay 980 pixel waxaa ka dhignaa article-ada dhammaan article-ada dhan aan soo qaadanaa tag-gooda waxaa leenahay grid column span-kooda mid kasta kaligiisa qabsaa leenahay saddexda xabo ha qabsado kadibna mid kastana waxaa leenahay display grid ka dhigaa leenahay oo laba column ha qabsado mid kasta laba column ha noqdo markaas sawirkii
iyo contactigi ha noqdo space u kala dhexaysii 60 pixel u kala dhexaysii gaabkooda artikalada centerkan isku keena leena intaasaa fiirina markaas hadda aan keeno 900 marka halkaan fiiri marka halkaas fiiri 900 markaa keeno arta isbedelaya marka hadda qaybta hoose tagna qaybta hoose si fiican u arkaysaa marka 900 aan keeno eeg way isbedelaya markaas ilaa kuu sii yaraanaya hadda laakiin ma sii yaraanaya mid kasta waxaa la dhigay column spank si kii hore looga keysiyey marka saas ayuu kusoo baxayaa mid kaste 2 column ayuu noqonayaa keligiisna uu qabsanaya 3 column markaas waa cool aw laabana koodkeena marka qaybs marka waa ka dhignay haddii laakiin la sii yareeyo maxaa dhacaya haddii la sii yareeyo oo aad loo sii yareeyo bal eeg haddii la sii yareeyo waa uu halaabaya markaas waxaa marka meelahaas la gaaro ilaa 760 iyo 8 wax ka yaraado inuu keligiis meesha qabsado marka oo keligiis uu qabsado ayaan ka dhigaynaa markaas meeshana u laabaynaa marka waxaa imaanaa qaybtan hoose imaanaynaa oo mobile marka laga joogo responsive waxaan wacanaa media query sidii kii hore soo koobiyeysan kartaa markaas soo koobiyeysan kii hore dhexdiisa imaanaynaa markaas waxaa leenahay markaas isna articleka wacaynaa iyo article feature labadaas article oo featureka midka kore iyo articlada dhan labadooda u wacaynaa coma u dhexeysa markaas labadooda marka amar wara siinayna marka waxaa leenahay marka display blog aa leenahay midka shaashadiisa blog ha ahaado oo hala baabiyo kolomyada markaas mid kasta waxaa sawirkii iyo waxay ahayd iyo wuxuu kala qaybsanaa contactii soomeen waa la baabiinaya mid kasta sawirkii gooniyu noqonaya contactina hoosu imaanaya marka display blog aa dhahay margin waxaa leenahay markaas marginkan waxaa leenahay 20 pixel ha kala dhexeeyo labada dhinac labada gees kor iyo hoosna 0 ha ahaado aan fiirina marka haddaan soo yeelano hadda waxaa ahayn waxaa ka dhigay 760 soomeen marka 760 soo gaarno inta hore haas waa laba u kala qaybsanaa marka laakiin 760 soo gaarno 760 markaa soo gaarno waa blog ayuu noqonaya qaybta blog media query ayaa shaqeynaysa marka mid kasta blog ayuu haysanaya oo is hoos imaanaya marka qaabka mobilka uu kusoo muuqanayo ayaa sidaas marka halkaas marka kusoo gabagabeynaa